ninka la yiraahdo Faysal Cabdi Bootaan ayaa isku dayay inuu xoogaa dagaalamo kadibna wuxuu arkay in dhan walba lagaga hareeraysan yahay isagu marka gaari Land Cruiser uu watay iyo gaarigii meydkii iyo dhaawicii waxay saari kareen ay saareen uraalka ahaa iyo booyadii shidaalka iyo tii biyaha iyo qorigan BMK ay dhacay inaad aragteen moojiye lugaha kor u taagaya iyo laba taangi iyo saddex suuq intaas u dabcan inuu la baxo nimiyahu marka dhibaatada meeshan ka dhacday waxay ahayd nimankan de way dagaalameen meeshana way ku jireen awood baa halka dhigtay oo gaarsiisay laakiin khidad baa loo dagado niman saraakiil oo yaryar oo wada Turki wax ku soo wada bartay iyo Russia meesha galay waxa lagu galayna khidad bay ahayd la dajiyay kadibna de dagaalku adiga arkay intuu qaatay difaaca gooja cadda wuxuu ahaa Maraaga waxaa joogay ciidan adigu ilaa 3,000 oo askari ah oo Somaliland ah iyo technica dhowr iyo 40 technica ah oo qoryahan waaweyn ay ku jiraan halkaas 40 daqiiqo ayaa lagu kala baxay Maraaga qoladii Maraaga markii la jilciyay oo wixii la qaban karay la qabtay wixii technicada aan la haray iyagoo orday waxay galeen gooja caddana dhanka dhoodida iyo dhinaca dhuya xuusho ayay kaga bilaabatay Tuula Sabakaab ayaa haddaba nimankan si fiican loogu galado Tuula Sabakaab 20 daqiiqo u horeeyay madaxa lagu deertay oo laamigii waa la kala jaray oo ari cadeeye iyo ilaa iyo xargaga saasa la isugu daadiyay nimankan gooja cadda joogay saddex meelood bay u kala yaaceen meel anagi bay nagu soo carartay oo iyaga oo maca waxaan ku yiri baabuurtooda istaaranta intay ka dageen ayay anagi nagu soo dhex yaaceen meela dhinaca iyo dhoodida ay u carartay dhinacii dagaalku kaga socday dhoodida subaxdii laga soo galay bay ku carartay meela waxay u carartay xaggan iyo xargaga oo meesha laamiga ka fuuli jireen bay u carartay saddexdii qayboodba qaybtii orodaba madaxa laga saaray waxa dhacday baabuurtan qoryahan BMK iyo taangiyadu xabadba kamay dhicinba Somaliland ciidanku wuu khalkhalay way kala yaaceen ninka la yiraahdo Faysal Cabdi Bootaan ayaa isku dayay inuu xoogaa dagaalamo kadibna wuxuu arkay in dhan walba lagaga hareeraysan yahay isagu marka gaari Land Cruiser uu watay iyo gaarigii meydkii iyo dhaawicii waxay saari kareen ay saareen uraalka ahaa iyo booyadii shidaalka iyo tii biyaha iyo qorigan BMK ay dhacay inaad aragteen moojiye lugaha kor u taagaya iyo laba taangi iyo saddex suuq intaas u dabcan inuu la baxo intiiba gacanta lagaga dhigay Faysal Cabdi Bootaan kadib gaarigii Land Cruiser buu watay aad buu gaarigu dheereenayado taayirka laga banjariyay markii taayirka laga banjariyay uu ka degay orod buu isdhiga waa tan lugta xabada wax yar lagaga dhuftay lugta inaad aragteen moojiye lugta waa dhaawac buu ka yahay oo may jabin laakiin xogaa hilibka ka yar dhaxbaxday markaas wuxuu galay geed isku dhoono oo adigu dhirtan isku baxbaxda ah ayuu bartanka u galay halkaas laga soo saaray ninkaas halkaas lagu soo qabtay marka gaarigii uraalka ahaa oo meyd iyo dhaawac sida iyo labadii booydood tii shidaalka iyo tii biyaha na waxa qabtay way iyaguna way dhumeenoo inday wada rafar raaceen bay soo noqdeen oo xargaga iyagoo kor taagan oo laamigi xargaga ka soo fuulay baa dhab la siiyay oo meel ay u socdaan ayna garanaynin baabuurtii laba baabuur oo suuga iyo saddex cabdibilayaal iyadana halkaas lagaga qabtay ninka la yiraahdo Faysal Cabdi Bootaan Faysal markii la soo qabtay lugta xogaa fil Hindiya baa lagu matalado lugtay bashka geersiiyana waa kuwa soo qabtay wax allaala wixii baxay gooja cadda ka cararay laba qaybood bay u kala carareen hadda waxa jira 7 gaari oo xudur shalay laga soo caaysado laga soo rasaasay maqribkii oo dhoodida wareegaya jiro hadda lagu baxay saaka lagu baxay hadda waxa bleeda kama hayo in la soo qabtay in kale mooji gaariyaashaas waa hal teedhisaban iyo hal suuq iyo 5 baabuurtan dhishikayaasha mid baroona baa ku jirtaan malaynaya baabuurtaas waa way aanbadeen dhulkoodina ma gaarin kaayagina kama dhex bixin ilaa iyo xalay meelahaas ay wareegayeen way dansadeen oo dhoodidaas ku jiraan hadda la raadinaya lagu raad joogaa 13 nin waxa laga soo guray xalay iyo saaka waxa laga soo guray inta u dhaxaysa ari cadeeye iyo gooja cadeeye inta u dhaxaysa ayagoo dhirku jira oo ragii qaar baa xataa qoriyabo wadanba oo waran la yaala raggaas uu yahay total hadda totalkeedii la wadaa maxaabiistii ilaa iyo meesheeda Yugoori iyo ari cadeeye iyo xargaga iyo gooja cadde wixii oo dhan 12 xalay waa la gurayay laascaanood baa hadda wixii u dambeeyay lagu soo shubay